daawadayaal mar kale ku soo dhawaada wararka warbixinada iyo wareysyada runta news journal oo aad si joogto ah ugala socotaan Soomaaliya iyo Seattle Washington ee carigaasi Mareykanka tan iyo markii uu khilaafku soo kala dhaxgalay madaxda u sarreysa wadanka waxa magaalada Muqdisho faraha ka sii baxayay ammaanka caasimadda iyadoo si xawli ah u socdaan dilalka qorsheysan dhaca hantida dadweynaha sida gaadiidka lacagta kombiyuutarada mobilada iyo wixii la mid ah Xamso Axmed Naasir oo ahaa makaanig dhanka mootooyinka ah iyo Axmed Xabiibi oo isna wiil YouTuber ayaa hameenkii xalay ahaa naftoodii ku waayay mobiladoodii kadib markii ay dablay hubaysan ku weerareen deegaankoodii oo ahaa degmada Kaaraan ama darida magaalada Muqdisho ayaa mid xawaare sare ku socota xilli qodobka ugu xoog badan oo la isku hayaa uu yahay amniga kaasoo la doonayo in laga bixiyo gacanta madaxweynaha ehelada wiilasha xalay la dilay ayaa ka waramaya sidii ay wax u dhaceen inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul mawt naf walba way dhimanaysaa naf walbana waxay ku xukumantahay inay dhimato laakiin geerida way kala xanuun badan tahay wiilasha xalay inta lagu baabi'iyay waa wiilal Soomaaliyeed waa dhalinyaro xamaalada ah waa dhalinyaro aan dawladda u shaqeynin waa dhalinyaro iskooda u shaqeysto waalidiintooda u shaqeysto waxa meeshan si fool xumo ah baaba lagu geystay gacan xaq daran ay ku dishay walaaleyga aniga dhashay oo ila dhashay garabkayga ahaa Xamso Axmed Naasir iyo Axmed Xabiibi oo aad loogu wada yaqaan oo ah wiil ka shaqeeyo farsamooyinka mootobajaajka iyo YouTuberska dadku madadaaliya meeshan waa meeshii uu ku dhaawacmay dhaawac halis uu ku soo gaaray walaalkii Axmed Xabiibi oo hadda aan ogahay in amni darro xaafadda ay ka jirto oo ilmo iyo isbaarooyin iyo mobilada hirti cad inta la iskaga qaadanayo masaajidka laga aadi laayahay amni darradaas ayaan ka hadlayaa marka dhibaatadaas jirto waxa laga rabaa maamulka degmada iyo waaxyooyinka iyo taliyaha saldhigga taliye ku xogaanka inay xaafadan cabashada ay qabaan ay ku soo baxaan degmada Kaaraan waaxda Nagayle qaybta oo Burkudi koow amni darro saa'ida ayaa ka jirto mobilada lama qaadan karo waa ku mahadsantihiin daawashadiina fadlan ku dhufa like dhammaan baraheena runta news journal ee YouTube Facebook iyo Instagram hana ilaabin inaad saaxiibadaada la wadaagto una share gareyso wararka xaqiiqada ku dhisan